subax wanaagsan walaalayaal meel walba joogteen waxaan rajaynayaa codkay in la maqlaayo wadaan maraya maanta waxaan ka balansanahay meel immigration oo sharci ayaan ka balansanahay marka ilaahay inuu khayr ka dhigo iisoo ducee mideeda kale sorry no qof baa su-aal i weydiinaya cricket iyo soccer iyo weydiinaya anigana waxaan ka aqaan mala koleyt waad ogtihiin South Africa inay wadooyinkeeda iska xun tahay marka telefoonkaan ahay in la iga dafo ayaan ka baqay waxaan rabay maanta inaan ka hadlo halkan markaan u soo socday hadda oo meesha sharciga aan ka doonan aan u soo socday baa waxaan la kulmay nin baabuurka waday oo ani iskayga qabsado su-aalooyin i weydiiyey wuxuu dhahay hay dukaan maad leedahay Soomaali ma tahay waxyaalahaas camal anigana ana u jawaabay su-aalooyinkiis waxaan ugu jawaabay waxaa dhacday inuu qaadanayo daaba grandpa wax la yiraahdo inuu qaadanayo grandpa ma aqaano adduunyanaha in laga yaqaano laakiin waa sida dispring ka mise panadol waxaa dhacdaa ayadoo buda ayaa halkan laga gadaa marka grandpihii ayuu la qaayay daawadu la qaayay marka wuxuu ugu yiraahday daawadan inaan la qaayo ma aragtaa maalintii waxaan cabaa 10 camal aan cabaa 10 xabo camal ayaan cabaa sababtan u cabo maad garan may ayaan ku yiri wuxuu leeyahay sababtan u cabo waxay tahay waxaan dilay 30 qof ayaan dilay jirraxa igu daday waan qaboway jirkeyga intaan yar istaag wax yar waqti badan aan leeyahay jirraxa igu daday jirkeyga oo dhan waxaan siri maanta maalinta dhiman lahayd miya ala kulli xaal waxaago waan isyaradajiyey markaan isyaradajiyey baan wareysan ninka waxaan ku yiraahday niyo 30 qof maxaad u dashay wuxuu igu dhahay 25 qof waxaan ku dilay askari ayaan jiray marka anoo line of duty ku jiro ayaan dilay 5 qof oo kalena intay iiga hor imaadeen anoo wada maraayo baa waxaa dhacday inay idacaan camal oo iga qaataan wixii aan haystay telefoonkii lacagii aan haystay wayna i dileen dhimasho iga tageen على كل حال وأنا قرناي وجزاء شو ده أنا قرناي ما كان سوى مرسلي بان إنتان أرضي قري أن سو خاتي أن حافظي تالي قري ما كان سو خاتي باشنطة قف أن مدح وردفتو يقول هذا مركا إسلام مركي والي دسمسل أيالي يقسمه وحده أصل كي يجهر ما كان دتك دلو وحاهن تشرين سيلف ديفنس أي هانجلت لكن شن قف إسلام مركا أيد هدي أنا حبض إنتان سكسو بحي أن دل لها وهان له self defense وغير هذا balse ما يسنهانو intaan orday ayaan qori soo qaatay meesha joogeen aan ugu tagay sidii ayaan ku soo dilay oo naftooda aan ku dhaafiyo marka wuxuu yiraahdaa daawadan aan abaayo waxay tahay madaxa ii dijinaysa marka ala kulli xaal ninkii ana barihan Ahmed Rashid fiirinayo iyo historigiisa fiirinayo بايلا أمريكا نكان وركيس سو جاري ومركا ديان سدا اسكول كلنا مركا حارب أحمد رشيد إن نكهل أحمد رشيد ودلاء قاعد نقول ديجل وين واي أو جانجستر وسكو شيء قاعد إنه دلاء وجانجستر أنت أسرع كوين أسرع وحاول مثل لو تاجر سنة لو تاجر جانجستر مثل لو تاجر سنة هاي واي haddii aan iga dhaadhiciyo xagga sharciyiin dowlad ahaan iyo diin ahaanba ma sheegayso qof bini aadan inaad toogato mise waa naftiisa daafiso hadduu qofku markaa uu dambiile yahay ilaah uu ahaado dilaa isla Axmed Rashiidka muu ahaado gacan gudhigle weyn muu ahaado waxay sharci dhigaysaa qofka inay intii la qabto la xiro maxkamad la saaro due process wax la yiraahdaa jira oo qofka asaga wixii lagu xukumo maxkamadda marka dawladda ayada dawlad walba meesha ka jiraan
waxay ku xukumaan dul toogasho ha ahaato xabsi daa'in ha ahaato marka ay lagula dhaqmo qofka asaga ayaa waajib ee tahay laakiin soo qof intuu iska imaado qof kale uu iska dilo xabad iskaga dhifto madaxa uu ku sheego qofka inuu dambiile yahay mise uu gacan geliyo oo mise gangster yahay taa ayada sharci dhigayso oo bini aadanka maana arag kolayto anigu mid ugu weyn oo iga yaabisay waxay tahay Soomaali haddaan nahay oo diinta islaamka aan haysano wax walbana aan leenahay waa xaraan mise waa xalaal oon ka qaylino wax yar oon aragno aan ka qaylino ka cabaadno baraha bulshada aan uga qaylino haddana inay caadina la tahay qofka bini aadanka oo nafta laga gooyay inay waxba ilaahayn dadkii ayaa iga yaabis midaas iga yaabis oon aniga lama kacab Soomaaliga iga dhamay alaa kulli xaal ninkaas waa gacan gudiigle sharciga ka taalo Kenya ayaanan garanaynin oo qofka bini aadanka iska disho haddana wadada iska marayso oo sida gangster odayaal badan waxaan arkay oo waayeelo u duceynayaan oo leeyahay ninkan meel buu inaga qabtay tuugada inaga qabtay maya tuugada waxaa la ogol yahay hadduu ka qabanayo qofka in la xiro xabsi la geliyo oo maxkamad la saaro dawladda marka ayada sharci ka taalo lagu xukumayo loo ogol yahay laakiin qof bini aadan iska disho madax aad ka toogato taa ayada sharcigiisa ma jirto islaan iyo dawladeedba wuxuu ahaado marka niyo dad iska qabtaa ninka hal iska qabto waa gangster weyn hal iska qabto dadkan mudaharaada arkay oo ka mudaharaada asaga maxkamad waxa la dawlad Kenya ka jirtay miya wax dawlad la yiraahdo ka jirtay miya waa nogsoon inay Kenya wax walba ilaaluus tahay musaamiq كجزء هذا وان المادة أرجع إنه واحد بلا لوش تاعي corruption عادي وين تاعي يعني أكسونه بس ملا واقف دولة الحيك سدو لا لوش البحالة بحية نكاس مال إسكاج بحية ضدك أرجع حسدك وهاي نيروبي وأنا إسلام ولا لا أتكي حرمة شحنة ما يسوي بينا ما يسوي وتدين تاعنا لا وقت ده باي